Siciid Alcaabidi ayaa wiilkiisa uga sheekeeyay sheeko asagoo faraya dardaaran kuna yidhi, wiilkayga waxaana la deganaa xaafadda Kuufa ee Ciraaq, wiil alle caabud ah oo masaajidka ku xidhnaa, ahaana wiil weji qurux badan iyo joog dheer leh kuna sifaysnaa aamusnaan badan. Maalin baa waxaa aragtay gabadh aad u qurux badan oo soo jiidasho leh, markaasay wiilkii ka heshay. Maalin asagoo masjidka u socda ayay waddada u istaagtay waxayna ku tidhi, wiilyahow dhegayso, waxaan doonayaa inaan wax kuu sheego. Kadib waxaa doonto samee, muusan la hadlin, waa uu iskaga tegey. Wuxuuna aaday masjidkii. Markii uu soo noqday bay haddana waxay ku tidhi, wiilyahow waxbaan kuu sheegayaa inay dhegayso. Kadib wiilkii ayaa ku yidhi, meeshan waa waddo, ana waan dheebsanayo in dadku xumaan ay igu tuhmaan. Kadib waxay ku tidhi, wallaahi meeshan kuma istaajin inaan ogeyn xaalkaaga iyo wanaagaaga ee hadalka aan kuu sheegayo ayaa ah in nafteyda iyo qalbigayguba ay adiga kugu mashquulsan yihiin, ee Allah baan kugu dhaariyay arrinkayga wax la qabo. Wiilkii baa ka jeestay oo iskaga tegey. Kadib markii uu gurigiisa tegey ayuu u istaagay salaad, balse wuu awoodi waayey. Wuxuuna soo qaatay qalin iyo waraaq. Kadib markii uu qoray waraaqdii ayuu soo baxay, mise waa gabadhii oo weli meeshii taagan kuna sugaysa. Wuxuuna u tuuray waraaqdii, waxaana ku qornaa warqadda, waxaan ku bilaabayaa magaca Allah oo naxariista qaaska ah iyo naxariista guudba. Ogow gabar yahay, Allah sareeye hadduu addoonkiisa muslimka ahay caasiyo, wuu asturaa. hadduu addoonku ku laabto macsida Rabbi wuu asturaa. hadduu addoonku ku faano macsida u caadaysto, Allah wuu cadhoodaa cadho aysan u dulqaadan karin samooyinka, dhulka, buuraha iyo xayawaankaba, ayaa u dulqaadan karo cadhada Rabbi subxaanahu wa tacaala. Waxaan ku xasuusin maalin uu cirku noqon doono sidii bir la dhalaaliya oo kale, buurahana ay noqon doonaan sidii suuf la tifay oo kale. Wallaahi waxaan awoodi waayey inaan toosiyo naftayda, sidee baan u toosin karaa naf kale? Haddii aad tahay gabar xanuunsan, waxaan ku tilmaamayaa dhakhtar daaweeyo xanuunada oo idil, kaasna waa Allah subxaanahu wa tacaala. Haddii aan kaga jawaabo hadalkii aad tiri ee ah inaad mashquul igu tahay aniga, anna wallaahi waxaan mashquul ku hay hadalka Rabbi subxaanahu wa tacaala. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. uga dig dadka maalin dhow markuu wadnuhu imaan doonta cabsi darteed iyagoo naxsan, daalimiintana ma lahan sokeeyo iyo mid u shafeeca oo loo maqlo. gabartii baa ka tagtay una soo laabatay maalmo kadib, waxayna u istaagtay waddada. Markuu wiilkii arkay gabadhii oo taagan waddada, wuxuu damcay inuu guriga iskaga laabto si uusan ula kulmin gabadha. gabadhii baa ku tidhi, wiilyahow ha laaban, mar dambe ma kulmi doono ilaa Allah hortiisa ma ahee, yacni maalinta qiyaame. Kadib gabadhii ayaa ilmaasay, waxaana ku tidhi, ii dardaaran wiilyahow. wiilkii baana ku yidhi, waxaan ku dardaarmayaa cabsida Allah markaad keli tahay iyo mar kaleba. dhowr naftaada oo xasuuso hadalka Allah subxaanahu wa tacaala. markaas baa loo soo celin dadka xagga Allah xaqa ah, isagaana leh xukunka, isagaana dedejinaya xisaabta. isagoo ugu dardaarmay aayado qur'aan oo dhowra. markaabay gabadhii oyday oohin ka daran midii hore, wayna ka tagtay. waxayna bilowday inay toobad keento oo cibaadaysato, kamana aysan suulin cibaadadii ilaa ay ka geeriyootay. waxaanuu ahaa wiilku markuu soo xasuusto gabadha mid ilmeeya naxariis darteed. haddaba dhegaysta, waxaan rajaynayaa inaad si fiican u dhegaysatay qisadan, sidoo kale wax badan ka fahantay micnaha qisada. waxa sidaasi sameeyey waa wiil dhalinyaro ah oo adiga oo kale ah, balse leh iimaan buuxa iyo qalbi wanaagsan, sidoo kale ka cabsaday Rabbigiis. midkii Rabbigiis ka baqaana wuxuu leeyahay 2 janno. ولمن خاف مقام ربه جنتان. midkii ka baqa hor istaaga Rabbigiis wuxuu leeyahay 2 janno. haddaba ka cabso Rabbiga, sidoo kale naftana ka reeb xumaanta iyo hawada adduunyada. dhab ahaan waxaad ku lahaanaysaa hooy iyo boos jannada. haddaba yaysan adduunyo amaba haweeney laga uumay carro
ka hor istaagin kaana mashquulin quruxda jannada iyo haweeney laga uumay sacfaraan. haweeneydaas oo aan fiirnayn midaan adiga ahayn, hortaana jin iyo insiba aysan la sheekaysan. waa gabar ku cadhoonaysa adigoo adduunka joogo haddii xaaskaa ku dhibto ama kugu xadgudubto, balse waa haddii aad meherkeeda hormariso oo ah cibaadada Rabbi subxaanahu wa tacaala, kuna dadaasho naftana ka dhowrta xumaha ay doonayso si aad u gaadho janno uu Rabbi u diyaariyay addoomihiisa dhowrsoon. berina ay degi doonaan sidii iyagu wafdi oo kale ah.